kulanti wanaagsan dhammaan asxaabta meel kasta oo joogtaan. Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore waan salaamayaa meel kasta oo joogtaan. Maanta jawiga qorax ayaa jirto. Aad ayuu u fiican yahay. Halkani waa meesha magaalada laga xukumo. Dadkii soo baxay aad maanta dadku soo baxeen. Isbedel weyn ayaa muuqda inkastoo xalay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron wuxuu ku dhawaaqay in 30 cisho kale lagu daray ilaa iyo bisha May ee soo socota. Dadka sidii hore way ka badan yihiin. Isbedel weyn ayaa jira. Sababta waxay tahay guriyihii waa lagu daalay kulaylaha beryahan jiray. Maanta jawiga aad ayuu u fiican yahay maasha Allah alxamdulillaah. Marka dadku waxay u soo baxeen waxay arkeen waqtigii lagu daray guriyihii waa la joogi waayay. Laakiin inkastoo saas ay tahay haddana waa la fududeeyay. Halkani waa baar weyn maraya waa cidlo magaaladu waa cidlo laakiin baararkii wixii iyo service-kii xiran laakiin dadka waa iska socdaan. Sababtay dadka u socdaan marka fududeeyay waxay tahay waxaa jirta awal warqada laga soo baxay computerka dawladda ay soo gelisay wasaaradda arrimaha gudaha warqadaas oo la saxiixayo si markaas loo sameeyo waxa u bixiyay sida ku qoraysa. Laakiin hadda waa la fududeeyay waxa la soo geliyay foomkii waxa la soo geliyay telefoonadii marka meesha ka buuxinay qofku ka buuxinaa hadana wuu baxaa hadana wuu soo noqonaa hadana wuu baxayaa Britain uma baahna way yara fududeeyeen. Sidaas daraadeeda ayaa waxay sameeyeen yacni dadkii kuleelihii ayaa bilowday jawiga magaalada wuu isbedelay marka dadkii waa iska soo baxeen. Inta badan sanka ma xirna maanta sababta ma garanayo cabsidii ma yaraatay walow ay jirto dalka Faransiiska markabkii dagaalka Charles de Gaulle ciidamadiisii ayaa xanuunkan laga helay waxaa laga helay xanuun yacni askar fara badan oo mariiniska ah ayaa laga helay. Marka maadaama xanuunkaas laga helay askartaasna ma ahayn askar oo dadka dhex gasha waa askar markabka dagaalka ugu weyn Charles de Gaulle loo yaqaano ayuu ahaa. Marka sidaas daraadeeda waxaa lagu arkay xanuuno fara badan. Su'aal ayaa la isweydiiyay waxaa la leeyahay sababta maxay tahay ciidamadan dadka ma dhex galayaan xanuunka u qaadeen. Waxaa iscasilay maamulkii taliyihii ciidanka markabka dagaalka amba taliyihii ciidanka qaybta qaabilsaneed ayaa iscasilay dhawaan maadaama xanuunkaasi la arkay waxaa la isweydiinayay marka maxay tahay sababta xanuunkan ugu dhacay kastoo ilaahay xaggiisa ay tahay sababta ugu dhacay inaysan ahayn wax oo bini'aadanka I think ku xiran qof kastuu ku dhacaya qofka ilaahay u qadaro. Marka salaamu calaykum horta ma ku jirtiin waan salaamayaa galab wanaagsan meel kastoo joogtaan. waa Khadiija Maxamed Qalanjo oo idinka soo salaamaysan dalka Faransiiska gaar ahaan magaalada Paris. Waxaan raadinayaa Britain aan soo baxay magaalada indhayna Britain aan soo baxay fursad way mugtahay 3 maalmood guriga waan ku jiray madax xanuun ayaan qaaday yani waxaan ahay dadka oo nacab guriga inay ku jiraan sababtoo ah guriga markaa ku jirtid oxygen-ta kugu yaraanayso hawa u baahan tahay sport u baahan tahay sanbabadaada jirkaaga inuu shaqeeyo waayo. farmasiyaashu way furan yihiin waxaa furan goobaha ganacsiga dukaamanka oo cuntada way furan yihiin sababtoo ah qutul daruuriga ama qutulyoonka wax loo yaqaano dadka lagama xiraay 8 la xiraa laakiin 8 meesha 10 ama xilliga kala barka habeenimo u furnaa jira. halkani waa meesha muraayadaha indhaha yacni baabada loo xiray ma furno shaqadii aad ayay u istaagtay
dhaqaale fara badan ayaa wadanka macnihii hoos u dhac weyn wadanka muuqdo. waan lugaynayaa waan yaro lugaynaa maadaama guriga lagu jiro yaa maadaama guriga lagu jiro waxaa loo baahan yahay hadda meeshaan oo kale waa farmaajada iyo waxaas waaye wuu furan yahay qutulyoonka oo dhan way furan yihiin waa dukaan weyn oo asagana farmaajada iyo waxaas lagu gado iyo waxyaabaha khamriga iyo waxaas lagu gadaa waa dukaamanka Faransiisku leeyihiin halkan sidoo kale goobaha ganacsiga yaryar ayaa furan meelahan waa meelaha liinta oranjada iyo qudradda fruitka iyo lagu gadaa ayaduna ay furan tahay walaa waa fursad fiican cuntadii aa furan waa wadan isku tashtay oo macnihii aad iyo aad cuntooyinka dhan way furan yihiin sababtoo ah dadka gaajo looma dilayo guriga xataa qofka uu ka bixi karaa warqad yar iska wadanayaan dadka hawee u baahdeen muddo fara badan ayaa guryaha lagu jiray halkan meelaha rootiga dadka qaar way iska xireen cabsi laga qabo xanuunka cabsiga laga qabo dad badan aa xiray meelihii yaryar ay safaa loogu jira dadka safay ku jiraan gudaha in la galo lama ogolo sababtoo ah dadka oo dhan ma geli karaan hadday galaan waxaa dhici doona xanuunka laga baqaa halhalaa loo gelaya halhalaa loo gelayaa safaa lagu jira waa qudradan haddaan fiiriyo qudradan haddaan fiiriyey meeshan waa especially meeshan waa qudaarta oo freshka marka sidaada loo soo gooyo ayay keenaan waa qudaar aad u fiican qudaarta kale lama mid aha oo la keediyo galabta haddii lasoo gooyo maalinta kale u imaanaa marka wakaas ganacsiga Paris wuu kala furfuran yahay laakiin qalab electronic ma shaqeynayo music ma shaqeynayo tiyaatar ma shaqeynayo aroos ma jiro warkiisa isku imaatin ma jiro laakiin dadka magaalada waa la socdaa si fiican maanta sidii hore ma ahan because dadku way qoosteen waxay isdhahayeen 15 cisho markay dhamaato iyo 15kii hore bil waxaa la isdhihi doonaa inuu fasaxayo madaxweynaha la moodayay xalay marka madaxweynaha bil wuxuu ku daray bil xataa 15 cisho ma aha dadkii marka waa iska soo baxeen sababtoo ah dibadii kulaylaha waa fursad kulaylaha banaanka loo soo baxo meelaha rootiga way furan yihiin waa rootiga lagu gadaa special rootiga oo Faransiiska waaye iyo keegag iyo waxaas waa dukaan oo dukaamanka rootiga ku badan oo forno loo yaqaanaa forno marka dukaankan waxyaabaha oo wuxuu gadaa isagana oo waxyaabaha barafka uu gadaa sida jalaatada qudradda oo la barafeeyey hadda casri uu noqday qudraddii oo halaabi jirta la daadi jira ma jiro waxay sameeyaan qudraddii waa dib baa loo farsameeyaa waa la jarjaraa markii la jarjaro waxaa lagu sameeyaa baca ayaa lagu ridaa talaajada la gelinaa talaajada qurux badan loo sameeyey marka dukaankan wuu furan yahay yacni waxaan oo dhan waxaan ka wadaa waa cuntada Carrefour la dhahaa wuu furan yahay laakiin maxaa xiran hiliblayaasha qaaraa xiran meelihii ubaxyada xiran meelaha ubaxyada lagu gado waa la xiray sababta loo xiray ubaxyada markii la isku dhiibayo kale xanuunka lagu faafinaa la yiri meelaha oo dhan way xiran tahay dukaamankaas kala xiran yihiin marka farmashiyaha wuu furan yahay wuxuu furan yahay in dawooyinka laga gato waxyaabaha emergency-ga oo dhan in la gato marka markabkii dagaalka u soo noqonaynaa ee dalka Faransiiska Charles de Gaulle farmasiga wuu furan yahay waa farmasiga maalin dhaweed aan waxaan ka gata rabay maalin wax ka gadin jiray waxyaabo yar alcoholka iyo waxyaabo la marsanaayo oo farmasi furan yahay
markabkii dagaalka oo Faransiiska ciidamadii saarnaay ayaa laga helay ciidamada badda Mediterranean-ka joogay oo markab dagaal oo qaada diyaaradaha miiga xawaaraha dheer ku socda waxyaabaha degdega ah weerarka ay u sameeyaan haddii difaac la dhaho waddanka difaaciisa amba meelo ka baxsan waddanka dibaddiisa si ay u difaacaan waddamada iskaashaanbuursiga waddanka ka dhexeeya meeshaan waa meel waxaa la dhahaa stop bas waaye amba aareeda biisa la dhahaa basaskaa lagu sugaa ani marka bas laba istaa waan soo lugeeyey mid saddexaad aan rabaa inaan lugeeyo haddii ilaa iraa ama labaad meel kasta waxyaabahan lagu dhejiyey resti shevu oo ah halkaaga joog si wada jir ah aan iska wada caawino ayaa la leeyahay in waxaa lagu leeyahay gacnahaaga iska dhaq waa bus stopka waa meelaha xayeysiinta lagu qoro bus stopka gacnahaaga dhaq aa lagu leeyahay markaa guriga soo geshid ama markaa rabto inaad cuntid gacnahaaga dhaq ama farahaaga dhaq markaad hindhisay sidoo kale iska xijiyaa lagu leeyahay wax gacantaada say u firdhisamin yani waxa hindhisadaada iyo waxaas ama qunfacaaga sidoo kale waxaa lagu leeyahay isku dhawaanina hoostaa iska gelina yani ama famil ahaada amba ha ahaanina kala fogaada lagu leeyahay marka waxaa lagu leeyahay haddii xumadaadu ay gaarto 38 iyo ka badan halkan waxaa ku qoran 38 iyo ka badan soo hadal telefoon soo dir qandha haddaad dareentid su-aalo soo weydii lagu leeyahay nambarkaasna soo wac nambarkaasaa la wacayaa waa free waxaan rabaa inaan ku darsado marka maadaama aan ka sheekeynayno waddanka Faransiiska xaaladiisa Soomaaliya aan soo noqonaynaa marka waxaan rabaa inaan bal Soomaaliya wax yar ka iraahdo waxaan maqlaayay farsaamo wasaaradda caafimaadka systemka ay u shaqeyso amba systemka dawladda Soomaaliya ani ahaan fikirkeyga waxay la fiican dawladdan faa'iido u ah maadaama ay rabto inay tiri koobto dadka xanuunkan ku dhacay amba u dhimanayo waxay samaysan karaan xafiisyo wasaaradda caafimaadka xafiisyo oo telefoono la dhigo la dhaho dadka soo hadla inta qofoo ku dhacay la caawiyo dadka waxyaabo loo sheego in say uga hortagi karaan amba siday yani u samayn karaan haddii xumadooda sareyso telefoonada dadka soo wacaan markaas in la diiwaan geliyo inta qofoo soo wacday inta xanuunka qabto laakiin waa waxyaabaha la rabo in la iska saxo wadamada hore u maray xataa kuma dhaqmi karaan noocaas qofka qabrigiisa in la tago la yiraahdo hebel muxuu u dhintay amba qofkii oo la aasi rabo oo problem la geliyo qofkii oo iska murugeysnaay waxaa ka fiican inay sameeyaan xaafadahooda meelo oo checkpointiyo oo dadka lagu daaweeyo ama lagu caawiyo haddiiba la caawin karo haddii kalena wasaaradda caafimaadka inay samaysato xafiis laga soo waco dadka iska diiwaan geliyaan ay dhahaan halkan lacagihii meelaha qaar lacagaha ma shaqeynayso lacago badanaa la isticmaalaa marka waa kasaa isbarbardhigii waa Soomaaliya wax isbarbardhigayaa wadamadan hore u maray amba Yurub ama Mareykanka Amerika Australia sida looga kala dhaqmo aniga hadda wadamadan waxaan la dhahaa telefoonka way kula hadlayaan waxay ku leeyihiin Maxamed ma ku haysaa naqaska ma kugu dhagaay maya gurigaaga iska joog biyo cab waa kaasay ku leeyihiin daawo lagu qoran oo daawo yar oo kalmaati ah waxaa lagu leeyahay gurigaaga joog marka maadaama wadankii horumarsanay uu saas leeyahay telefoon soo loo diraayo oo qofka hadduu xanuunsan ambalaas loo soo diraayo Soomaaliya awooddaas horta male laakiin telefoonka way awooddaa I think waxaan leeyahay iyo qofka isbitaal la geeyay iyo waxaas camal
marka taas waa taasaan uga baxayaa marka mar kale galab wanaagsan waa idin salaamayaa meel kastoo joogtaan waxaan idin leeyahay galab wanaagsan qaar bay u tahay duhur qaaray duhur u tahay I think America duhur inay u tahay iyo Canada annaga waxay noo tahay galab wanaagsan marka dhibaatada hadda xanuunkan ilaa hadda lama oga waxaa lagu leeyahay carruurta yaryar waxa ma ka dhibaayo ma ku dhacaayo camal dadka waaweyn wuu ku dhacaa marka calaamad su'aal waaye waxa ma fayrusaa mise waa wax kale sababta carruurta yaryar ugu dhaceynin oo dadka waaweyn ugu dhacayaan waa wax in la isweydiiyo mudan oo ma fahmaynin dadkii sanka uma xirno weli dadkii waa iska socdaan laakiin saas ay tahayna way rajo dhigeen waxay u rajo dhigeen guryihii joogaa la dhahay bishii labaada hadda bilaabatay guryihiin hala joogaa la dhahay marka sidaas daraaddeeda dadaa ilaaha iska tawakalay waxay sameeyeen saasaa loo ordayaa isboortiga aad u shaqaynayaa waa la ordayaa dukaankaas safaa loogu jiraa waa dukaankii maalin tusinaya safka waxaa loogu jiraa ma garanaysaan dadka lama ogolo inay 3 qof ka badan galaan dukaanka sababtoo ah waxaa la diidaa in isku neefsadaan 3 loo galaa qof ma ku soo baxo qofaa galaa dadka ayagaa isa safin cidna ma safin waa waddan isku tashtay danahooda ka fikiraya galab wanaagsan mar kale waan idin salaamayaa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa galabta tan iyo kulantideena dambe mar kale intaa hawada ku kulmi doono waxaan ku dhaafayaa qadiij qalanjeeda leh sidaas iyo nabadgelyo